alla calolxumo weyna caawa guri kasta oo ku yaala waqooyiga gaalkacyo waa laga oynayaa waana laga wada barooranayaa Dr. Sakariya Cabdi oo ka mid ahay dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaalka Al Xarameyn ee ku yaala magaalada Gaalkacyo ayaa loo dilay aano qabiilo darteed subxaanaka yaa cadiim miskiin caawiye ayuu ahaa dad danyar ah ayuu si bilaash ah u daaweyn jiray caawa ayaa koox manaxayaal ah waana la ka cabsanaynin naxariista allana markaasi qalbigooda ilaahay uu ka madoobeeyay ayaa waxay markaasi ku waarijiyeen xarun caafimaad oo markaasi ka howlgalayay marxuum Sakariye rabbi naxariistii janna firdawso allah ka waraabiyo ayaanu leenahay walaal marxuumkan gacanta ka xaq daran dishay hadaafin muuqaalkiisa adigoon u ducayn siina sheergare oo bulshada Soomaaliyeed gaarsiis si loogu wada duceeyo in ilaahay naxariistiisa uu fidiyo jannatul firdawsna ilaahay uu ka waraabiyo marxuum Sakariye waxa uu ahaa dhakhtar dhawaana ka yimid dalka dibadiisa halkaas oo wax ku soo bartay Soomaaliya ayuu dib ugu soo laabtay gaar ahaan magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland wuxuu dhawaana ka furay goob caafimaad magaalada Gaalkacyo caawa ayaa si arxan darra loogu dilay magaaladii intaas oo sano uu ka maqnaa waxna u soo baranayay dadkii markaasi ku sugnaa magaalada Gaalkacyona uu markaasi isagu ahay mid dadka caawiya oo u naxariista nin naxariis badan oo furfuran ayuu ahaa caawa magaalada Gaalkacyo muruga ayaa taala qof walba oo reer Gaalkacyooda kuna sugan dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo waa markaasi murugaysan yahay maadaama dhakhtar caalami ah oo magaalada Gaalkacyo caan ka ah isla markaana naxariis badan dadka markaasi ku sugan magaaladana si bilaash ah u daaweyn jiray ayaa aana qabiil markaasi loogu dilay magaalada Gaalkacyo waxaana ay noqotay dhacdadan mid ugu hadalhaynta badan xilliga kani ee caawa laga hadalhayo xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee waqooyiga markaasi ku yaala horinta uusan dibadda waxbarasho u aadin waxa uu ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jamhuuriya isagoo ku soo laabtay deegaankii waxbarashada markaasi uga safray socdaal dheerna uu aaday waxaana la sheegay waxyaabaha uu markaasi wax u baranayay marxuumkan inay ahayd ilaahay naxariistii janna firdawsa ka waraabiye in dalkiisii dadkiisii deegaankiisa uu hormariyo allah u raxmadee Sakariya Cabdi Jaamac waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u jecel inuu hormariyo deegaankii markaasi bulshadii uu kaga tagay inuu markaasi dartooda wax u barto caawa ayaa koox manaxayaal ah aana qabiil u dileen maadaama uu ahaa dhakhtar markaasi aqoon buuxda u leh cudurrada ku dhaca dadka markaasi ku sugan magaalada Gaalkacyo qabiil ma uusan ahayn nin qabiil ma uusan ahayn bulshaduna markaasi ma uusan ficli jirin waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah bulshaduna ay isugu mid tahay maleeshiyad u dhashay beesha reer Bicdiyahan ayaa dilay si arxan darra ayayna u dileen goobtiisa caafimaadka ama xaruntiisa caafimaadka isagoo markaasi ku sugan oo howlihiisa markaasi wata oo dadkii markaasi u adeegaya oo ayaa dhowr nin oo qoriyo sidata u soo gashay dabeedna waxay markaasi huwiyeen rasaas halkaas ayayna isaga baxsadeen oo ay ka carareen meydkiisa si loo duugo ayaa la garan laayahay oo jirkiisa ay cadcad u jarjareen waxaana ciidamada amniga ee Puntland ay ku sugan dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ilaa iyo iminka ay wadaan baaritaano kala duwan oo ay markaasi ku baadi goobayaan dableydii geysatay dilkan isla markaana ay rajeynayaan ciidamadu inay gacanta ku soo dhigaan